wasiirka wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland Marwahindo Jaamac Xirsi Gaani ayaa u soo bandhigtay qaar ka mid ah guddoomiyaasha jaamacadaha dalka boog lagu ururiyay xirfadaha shaqo ee ka bannaan dalka ee loo baahan yahay kadib markay wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland ay daraasad iyo cilmi baaris ay ku sameysay fursadaha shaqo ee bannaan si ay jaamacadaha dalku ay u gaarsiiyaan ardada ay wax barayaan boogan oo hirgelintiisa iska kaashadeen wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland iyo hay'adda Save the Children ayaa lagu soo bandhigay wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland Awaale Maxamed Muuse agaasimaha waaxda shaqo abuurka ee wasaaradda shaqagelinta ayaa sharaxay macluumaadka xambaarsan yahay buugan iyo sida ay jaamacaduhu ay u gaarsiin lahaayeen aqoon-yahanka dalka waa buug afsaane markaynu bedelo waxa weeyaan waa buuga xirfadaha u diyaar garowga shaqo yani marka uu ardaygu wax barto inuu una baahan yahay inuu skill-ka wax ka ogaado amba xirfadaha wax ka ogaado hawshan dabcan wasaaradda iyo khibradeedu baa soo waday korayado taageero ka helisa muxuu ahaa hay'adda Save the Children guddoomiyaasha jaamacadaha Amuud Hargeysa New Generation ayaa soo dhaweeyay buugaasi aad iyo aad waa dareenkaasi waa dareen weyn oo xagga farsamada runtii nin qolo Chinese ayaa bari jaamacadda ugu soo markaas aaway vocational schoolskiini aaway jaamacadda wuxuu doonayaa masaari waa jaamacadahan horta sameeyay no vocational schools comes first iyaga ka soo horeeyay come first step one sameeynaa codsigiina waa mid muhiim ah laakiin inaynu dib u eegno oo lacagahan deeqaha la siiyo ee sida ay idin sheegay wasaaradda waa la yar wada gaarsiiyaa inaynu si nidaamsan u sameysano waa iskaashigan inaynu ku dhinana waan dareenka waa qabnaa laakiin technical education vocational education oo wax dhiman ilaa taa la bilaabana horumar ha sheegin horta aad baan idinku hambalyeynaya inaad barnaamijkan ugu yeedhaan oo nagu dhiirigelisaan laftigeeda inaanu jaamacadaha qayb waxbarashadii ka mid ah ku soo biirino dadkii hore ee xataa kacaanadii warshadaha ee bilaabmay hore Ingiriiska iyo meelo badan ka bilaabmay waxay ka bilaabmeen wadada skills yaqaan ay urursadeen saasay ku horumareen China iyo waxa dadka shaqo la'aan ma taalo wadankan shaqo la'aan ma taale dadkan shaqaysanayn dad badan oo Chinese wadanka jooga oo fara badan Bangladesh iyo Yemen Syrian Egyptian Ethiopian ciida ka badan iyo dad fara badan oo qurqurma fara badan dadkaas skills buu istaan dhamaan wasiirka wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland Marwahindo Jaamac Xirsi Gaani oo furitaankii iyo qaybintii buugaasi hadal ka jeedisay ayaa ka warantay ahmiyadda buugan iyo waxyaabaha ku dhaliyay wasaaradda iyadoo oo sheegtay in wasaaraddu ay ogaatay in fursado shaqo ay ka bannaan yihiin dalka si loo gaarsiiyo aqoon-yahanka iyo dhalinta wax baranaysa waxaan idinka codsanayaa oo codsigaygu yahay laba arrimood marka koobaad buugga u diyaar garowga shaqada ee farsamada ee xirfadda ku dheehan tahay inaad marka hore ardayda gaarsiisaan oo u gudbisaan oo aqoonta ugu dartaan codsigayga labaad wuxuu yahay waqtiga aad ardaydu dhamayso jaamacadaha waxaan arkaa ama aan goobjoogba ka noqdaa iyadoo qofku maanta markuu qalin jabiyay shahaadadiisa la siiyay taasina ay runtii noqoto de qofkii mar hadduu shahaadadii qaato qofku hadduu passport la siiyo inuu dhoofaan baa galaya qalbigiisa mar hadda shahaadadii u dhiibtay qofkii de qof aqoon-yahan oo shaqo u baahan uu noqonaya wadan waliba wuxuu leeyahay waqti loogu talagalay aqoontan qofku uu bartay in dalka loogaga faa'iideeyo maadaama oo aanu nahay adeegayaasha bulshada sida ku cad magaca wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska waxaanu idinka codsanaynaa in aad noqotaan saaxiibada nagu dhow waayo bulshadu aqoon bay u baahan waxay u baahan tahay wixii aanu soo aragno inaanu qof gaarsiin karaya bulshada aanu u tabin waxaanu u baahannahay wixii markaa aan bulshada u qaban in la tuso oo la yiraahdo waxaas baa ka dhiman ku kordhiya Cabdulqaadir Cabdullaahi Nuur warbaahinta qaranka Soomaaliland Hargeysa